waxaan kaloo salaamayaa ergada labada dhinac ee halkan fadhiya iyo guddidii hawshan waday ee halkan soo gaarsiisay iyo marti sharafta iyo saxaafad iyo haweeninta ka fadhidaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan u malaynayaa hawshan aynu halkan u joogno inaynan isu sheegin. waa hawl in muddaa soo socotay, culimo iyo waxa weeyaan ismo iyo guddi iyo intuba ay soo wadeen. dhowr jeeroo horena waxa weeyaan la galay, maantana waxa weeyaan guddidan kale ee dib laga sameeyey ee halkan ay soo gaarsiisay iyo intii la shaqaysayba. horta ilaahay waxaynu ka baryaynaa inaynan dib u noqon. ilaahay waxaynu ka baryaynaa maslaxad khayr qabto inuu ilaahay inaan dhex dhigo. ergada labada dhinacba walaalayaal waxa weeye culimadii iyo isimadii iyo raggii hore ee meeshan ka hadlay waad maqlayseen. mid diineed, mid waayo aragnimo, wacdi iyo waanaba waa laynoo akri, horeyna waa laynoogu akri. waxaa la sheegayo oo dhan ama diin ha noqoto ama wacdi kale ha noqotee, haddayan idinka quluubtiina ayan gelin oo idinka dhexdiina idinka imaan, waxa weeyaan waa la daalaya. dawlad baan waxa weeyaan waxba ka qaban karin, isim baana waxba ka qaban karin, culimo baan waxba ka qaban karin. hadda markii guddidu halkan ay isdhaarinaysay, wallaahi waa ka naxaya bilaahi. waxaan iska jeclaysay inaad labada dhinac intay kacaan ay yidhaahdaan war bal annaga isku haranee bal dawlad iyo martiya balna daaye oo dadka halkaa iskugu yimid islaamka aada waxa weeye aad kaga farxad gelisaan. haddaydan taana ayna samayn, guddidan waxa weeye odayaashahayna waxa weeye waa idinku xiiqaya. dawlad waxa weeyaan wax idinka qaban kartaana ma jirto. dawlada hadda muxuu ahaaye midna geeskaa la fariisay, midna geeskaa la fariisay. anigu walow baana aada u kala aqoon, laakiin khasab kuwa is dhalay inaynu ku jiraan waa laga yaabaa. sida kuwii dhintayba la sheegayay labada dhinacba aada wax soo hayde. marka walaalayaal waxa weeyaan arrintani waxay u baahan tahay keliya xalkeedu uu noqonaya idinka oo toos waxa weeyaan waxaa jirana waxa weeye iska qanciya, sida waxu jiraanna waxa weeyaan uga wada hadla, isu tanaasul iyo waxa weeyaan dhexdiinana dhiga. baruntii aada ugu wanaagsan tahay. guddidu waaba dhaaratay, doorkeedu waaba cadi. dawladdana waxa weeyaan laftigeedu kulle canaano fara badan qaate oo hadda dib ugu noqon mayno. oo waxaynu ka canaano jirnay waxa weeyaan maanta meesha ay wax marayaan dawladdaa gaarsiisay baa lagu canaano jira. marka iyada laftigeedana waxba dib ugu noqon mayno. maanta waxa weeyaan waxaa loo baahanya horey in loo socdo. intii naga dhimatay inaynan waxa weeyaan aynan waxba ka dabageyn baa la doonaya. runtii kolley odayaasha muxuu ahaa aanu wada soconnay maalintii meesha muxuu aha ciidamada laga kala rabay, sidii loo wada hadlay runtii waxa weeyaan nabad baa lagu fadhiyay. oo waxa weeye in wax khaldan yihiin oo waxa weeyaan aan dhimasho dambe iyo dhibaato dambe ayan soo noqon baa la isla qaatay. wiilka khaladka wado waxa weeyaan la xakameeyo ayaa la isla qaatay. waxa weyn oo ka soo noqdayna ma jirto. walaalahayana waxa weeyaan laftigoodu waa la dadaalay oo waa la soconnaa. marka yaynan u hiilin wiilka alkoolistaha oo waxa weeyaan qoriga iyo xabadda inagu aynu u gadanno, aynu hilibka iyo isu kor saarnay qaadka, yaynan u hiilin. aynu u hiilinno kuwan waxa weeyaan wanaagga wada iyo mustaqbalkeenna dambe. intii dhimatay waxa weeyaan allaha u naxariisto. kala xumo bayna ku dhinteen.
wax wada hadal lagu dhamayn karo runtii baa waxa weeyaan intaasoo dhimashaa waxa weeye inoo keentay marka walaalayaal aynu wax ka baran kullay labadiina dhinacba waxa weeyaan walayna ka waaya aragsan yihiin oo dadka koonayaasha xiga bayba waxa weeyaan inaga badiya waxa weeye colaadi waxay tahay iyo nabadi waxay tahay calool baa ilaahay idinku beeray nabad badan baa ilaahay idin siiyey barwaaqa ilaahay idin gaarsiiyey wiil iyo aftigii baa iskula soo jeestay hadda ka hor baan hawsh muxuu ahaa in muddaa socotay oo sanado badan socotay oo inta halkan ku dhimatay in ka badan ay ku dhimatay baanu galnay meesha la yiraahdo meesha la yiraahdo meesha hagarkii hay'ad hawshooda aan ku gali jirnay ceegaag dhul bay ahayd sidan oo kale dad walaalo ah isdhalay 12 sano iyo ka badan bay socotay ilaahay wuxuu qadaray markii la soo raray saax dheer garaajaam gogasha dhigay oo la baqayo oo raggii hawsha ku jiray yaaban xagaa wax laga bilaabaya la leeyahay maalintii lala ballamay waxay yiraahdeen ergada iyo odayaashii iyo intan hawsha ku jirta ay hana sugaan wallahi 6 saacadood bay waxa weeyaan meeshii galeen waa qadeeyeen waxa weeyaan waa soo noqdeen iyagoo wixii kala qaybsaday macal duugtii iyo wixiiba kala bixiyay baan ugu soo noqday aad baan looga baqay tiyo kala walaalayeen ka rabaa inaad samaysaan xilli adag baa lagu jiraa abaaraha lagu jiraa inta meesha fadhida waxa weeyaan runtii culays fara badan oo u khaas ah baa nin waliba haysta idinna waad ka saxag jirtaanba waxaynu ognahay xoolihiinii waxna xaggaas inay jiraan waxna waxa weeyaan bari salkii jiraan qori hakana la kala fadhiyo qori iyo bahalkii iyo hoog iyo ba iyo holac la kala fadhiyo wax dan oo ku jirtaan ma jirto dib hal la isku dhaw beeluhuna waxa weeye markay ergooyinka la soo dirayo markooda hor intaan la imaanba wada hadal bilaabay mid walba waa cabaysan yahayba haddaan farxad iyo calool fiyoobaan aan la isku hor imaanna runtii nin iska xanaaqsan waxba ma dhamayn karo walaalayaal in hal is cafiyo wixii dambi hore inooga dhacayna waxa weeyaan aynu iska cafin tan maantaana waxa weeyaan aydan kala keen baan rajaynaa haddii ilaahay idmo كل ضياف كلا حاضر دون هدي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.